cabdi warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Cedar waxa uu markiisii ugu horeysay uga hadlay toogashadii ay ku dhimatay Justine Damon oo u dhalatay waddanka Australia isla markaana lagu eedeeyay inuu toogtay Maxamed Nuur oo ka tirsan booliiska magaalada Minneapolis. cabdi warsame oo bannaanka masaajidka Daaruquba kula hadlayay wariyaal ka socday gudaha Mareykanka iyo waddanka Australia ayaa sheegay in geerida Justine Damon ay ahayd dhacdo xanuun badan. Justine Damon's death is a tragedy and we must do everything in our power to find the truth of what happened. dhimashada Justine Damon waa mid xanuun badan waana inaynu samayno wax kastoo awoodeenna si aynu u helno xaqiiqada waxa dhacay waa mas'uuliyadeenna inaynu cadaalad u dalabno Justine iyo qoyskeeda iyo sidoo kale in loo dhaqdhaqaaqo dib u habaynta booliska. cabdi warsame ayaa shirkiisa jaraa'id waxa uu aad ugu nuxnuxsaday kororka islaam nacaybka ee ka dhanka jaaliyadda Soomaaliyeed iyo qaabkay warbaahintu isugu xirtay askariga Soomaali Mareykanka ee loo haysto toogashada Justine Damon iyo Soomaalida gobolka Minnesota. warsame ayaa sheegay in geerida Justine Damon ee loo haysto Maxamed Nuur ee looga dhigay midabkiisa asalka uu ka soo jeedo iyo diintiisa isagoo xuseen xildhibaankii hore aqalka Koongareeska Mareykanka wakiilka uga ahaan jirtay gobolka Minnesota Michelle Bachmann oo arrintan ka hadashay ay sheegtay inay toogashadii Justine Damon ee Maxamed Nuur ay suuragal tahay inay keeneen sababo dhaqan ku salaysan. These horrific statements are dangerous and purely divisive. warkan naxdinta leh waa khatar iyo kala qaybin waxay hoos u dhigayaan qiimaheenna Mareykannimo waxay raadinayaan inayna kala qaybiyaan waxaanan idiin sheegi karayaa inay dhaawaceen dadkeena Afrikada bari sogolootiga aynu jaarka nahay iyo saaxiibadeen. cabdi warsame ayaa sheegay in bulshada Soomaaliyeed aanay meelna uga socon gobolka Minnesota oo yihiin muwaadiniin Mareykana waxa uuna dadka faafinaya islaam nacaybka iyo kala fogeynta bulshada khaasatan Michelle Bachmann u diray fariintan. And I would like to tell Michelle Bachmann personally that I'm not going anywhere, and my family is not going anywhere, and my community is not going anywhere. waxaan jecelahay Michelle inaan shakhsiyan ugu sheego inaanan meelna tegayn qoyskayguna meelna tegayn bulshadayduna meelna tegayn taasi aad bay khatar u tahay sababtoo ah waxaad aragtay ficilada ashkhaas iyo xubno ka mida booliska oo u nisbeeyay dhammaan bulshada taasi aad bay khatar u tahay. cabdi warsame ayaa waxaa kale uu shirkiisa jaraa'id ku soo hadal qaaday in aanu la hadlin askariga Maxamed Nuur ee toogashada Justine Damon loo haysto cid ay wada hadal yeesheenna aanu la hadlin balse waxa uu xusay inay waajib tahay in laga salgaaro xaqiiqada sida wax u dhaceen. warsame ayaa carabka ku adkeeyay in sida sharciga Mareykanku uu qabo qofkii dambi gala lala xisaabtamo oo cadaaladda la mariyo. East African community has been told that our justice system must be blind. bulshada bariga Afrika waxaa loo sheegay in nidaamka cadaaladdu uu noqdo mid indhala dadkana lagu xukumo ficiladooda balse aan ahayn midab diin jinsi aanay xiriir la lahayn xog raadinta ficilkan. ugu dambeyntii waxa uu cabdi warsame shirkiisa jaraa'id ku sheegay in hanaanka booliiska ee magaalada Minneapolis iyo kan guud ee dalka Mareykankuba ay lagama maarmaan tahay in wax laga bedelo waxaana intaa raaciyay in taliyaha cusub ee loo magacaabay booliiska magaalada Minneapolis ee Madera Arradondo uu ka rajaynayo inuu noqdo mid isbedel wax ku oola keena. taageerada uu iga heli doonaahina waxay ku xiran tahay buu yidhi hadba sida uu wax uga qabto caqabadaha culus ee sugidda amniga ee horyaalla magaalada Minneapolis. sidoo kalena waxa uu cabdi warsame ugu baaqay jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota inay isdejiyaan wararkay warbaahinta siinayaanna ay ka fiirsadaan. hadalka cabdi warsame ayaa waxa uu culays ka dejinayaa jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota oo maalmahan bahda warbaahinta gobolku ay la xiriirinaysay dilkii uu geystay mid ka mid ah booliiska gobolka Minnesota khaasatan magaalada Minneapolis ee magaciisa la yiraahdo Maxamed Nuur. Maxamuud Mascade VOA Minnesota.